Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kusoo dhawaada mowduuceena maanta. Waxaan uga hadlaynaa muhiimadda ay leedahay wax akhrinta. Wax akhrintu waa mid ka mid ah hababka ugu muhiimsan ee lagu helo noocyo kala duwan ee aqoon ah iyo ka faa'iidaysiga guulaha iyo waayo-aragnimada dadka kale. Waa baahi lama huraan ah, waana sida aan ugu baahannahay cuntada iyo biyaha. Horumar walba hortiisa waxaa ahaaday wax akhris. Ummad walbo horumartayna waxay horumarkaas ku gaareen waa wax akhrin iyo baaritaan. Waayo wax akhrintu waxay kordhisaa garaadka qofka, waxayna toosisaa qaab fikirka qofka. Dadka qaar ayaa wax ku akhriya indhahooda oo keliya, oo aan maskaxdooda ku xirnayn waxa ay akhrinayaan, ama diiradda aanan saaraynin, oo waxa ay ku mashquulsan yihiin ama ka fikirayaan waxyaabo kale. Sidaa darteedna dareemaan in waqti soo maray oo aynan waxba ka faa'iidin waxa ay akhrinayeen. Sababtaas awgeed, marka aan akhrinayno Qur'aanka Kariimka, waxaa nagula taliyaa in si taxaddar leh loo akhriyo, taasoo ah in marka aan akhrinayno aayadaha ka hadlaya jannada iyo farxadda, inaannu muujino farxad. Sidoo kalena, marka aan akhrinayno aayadaha ka hadlaya naarta iyo cabsida, aanu muujino cabsi iyo murugo, taasoo ku tusinayso in muhiimad ay leedahay inaad u fiirsatid waxaad akhrinaysid. Sidoo kale, akhristayaasha qaar ayaa waxay ku bilaabaan waxa ay akhrinayaan inay xiiso dheer u qabaan, laakiin marka ay akhriyaan dhowr bog ama safxadood, waxay bilaabaan inay si tartiib ah u caajisaan ilaa ay ka waayaan raadinta waxay akhrinayeen, kadibna ay iska dhaafaan. Mid ka mid ah qorayaashii iyo waxgaradkii Masar ee noolaa qarnigii 20aad oo la dhihi jiray Daha Xuseen ayaa wuxuu yidhi, badanaa waxaan wax u akhrinaa inaan waqtigeena isdhaafino oo aynan ku dhismin maskaxdeena iyo qalbiyadeena. Badanaana waxaan wax u akhrinaa sidii aan nafteena u sii lahayd oo aynan nafteena u jeedin. Inaanan muhiimad siinin waxa aan akhrinayno waxay mararka qaar noo horseedi kartaa inaan isku dhafno ama aan helno macluumaad jahwareer leh oo leh saameyn ka soo horjeeda waxa aan rabno. Sidaa darteed, waxaa wanaagsan inaan si wanaagsan wax u akhrino, taas oo noo horseedi karto inaan wax badan faa'iidno. Sida ay diinteenu sheegaysana, waxbarashada lafteeda waa cibaado haddii loo keli yeelo Ilaahay subxaanahu wa tacaala. Mowduucana maanta intaan ayuu ku eg yahay. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.